يعني libaax aniga dareen gaar ah ugu leedahay waa xaafadaydii waatan ku barbaaray dhaqaalaha lagu qorsheeyay ama loo qundeeyay waxa weeye lacag 400 oo kun ayay noqonaysaa inay dhisanto ay qurux badato dareen gaar ah ay leedahay sida degmooyinka kale ay u bixiyeen ee ay u dhiseen ayuu beenana rabnaa inay u dhisato horumar kasta oo magaalada ka dhacayna maalin ka mid baan sidoo kale u hindisnay ugu riyoonay ilaahay inuu rumeeyay degmooyinkii kale waxna waa dhismeen waxna waa gabagaboobeen anagu hore u sheegnay anagu in Hargeysa iskaashi ayaa lagu dhisayaa maanta ay bishu tahay 14 bishii koobaad 2024 waxay degmada Gacan Libaax isku yimid gudidii horumarinta degmada Gacan Libaax maamulkii dawladda hoose iyo culimadiiba waxa kulankan ka kooban yahay oo la isku yimid in degmada sida ka degmooyinka loo dhisay in loo dhiso oo degmadu ay la mid noqoto degmooyin kale degmadan oo ah degmooyinka ay Hargeysa ka farcantay iyadoo degmada Jumba oo aan lahayn dadka degmada ku dhaqanayeen dadkii dayartahay ku hadhin laakiin ay degmadu leedahay ganacsiga waxaan leenahay dadweynaha ka ganacsanaya degmada Gacan Libaax inay ka qayb qaataan dib u dhiska degmada Gacan Libaax iyadoo ay degmada Gacan Libaax inay ahaato kuwa u mudnaayay loogu hordhiso si aynu magaalada u dhisano dadaalo badan baa socda oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay noo sakhiray waa cashuurteena inoogu qabsoomay waxa kale socda dhamaaday dadaalo kale oo dadka iyo dawladda hoose iskaashadeen oo guul laga soo hooyay waxaan rajaynayaa kana mashruucana inuu ka mid noqon doono mashaariicda iskaashiga ku qabsoomay ee Hargeysa ay ku faani doonto insha Allah ta'ala Gacan Libaax aniga dareen gaar ah ugu leedahay waa xaafadaydii waatan ku barbaaray gurigeyga waa kan inay dhisanto ay qurux badato dareen gaar ah ay leedahay sidii degmooyinkii horeba aan uga qayb qaatay maadaama aan oday magaalo ahayna waan uga qayb qaadanayaa oo wixii caruurnimadii iyo xaafadnimadii ay lagu yeeshana gaar baan u bixinayaa tii degmooyinka la lahaana aan maartay la wadaajiyayna waa bixinayaa degmadani waxay ahayd degmooyinkii ugu waaweynaa magaaladan barigii hore waxaan raacdaa waa degmadii dadkuba ka tageen ka farcameen waxaan Ilaahay ka baryayaa in qof kasta oo loo yimaado qiimaha degmadaas leedahay uu ku bixiyo wixii lagu soo qoro waxaan Ilaahay maadiyo dawladda hooseynay inteeda insha Allah Ilaahay idinkii markaba akoon ku shubi doonto rajo weyn maan qabaa warwariga ma hayo dhisaanka halka inoogu yaala waa dhismaya insha Allah Ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa ragga dalkan u fadhiyaan arkayaayo ninkii hortagaan inaanu insha Allah ma soo celinin ujeedada la isku yimid sida la tilmaamay oo dib u dhiska ama dib u qurxinta degmada xafiiska Gacan Libaax ay ku leedahay magaalada Hargeysa oo runtii kamida riyooyinka runtii sanadkan aanu leenahay horumar kasta oo magaalada ka dhacayna maalin ka mid baan sidoo kale u hindisnay ugu riyoonay ilaahay inuu rumeeyay waxaan rajaynayaa inuu ilaahay riyadan maanta halkaan iskugu nimid inuu inoo rumeeyo waxa ma wanaagsan iyo higsi waan badana imisa meelood oo saas oo kale aan maanta kale inta saas oo kale iskugu nimid de bariyo kale inuu ilaahay noo fudeydiyay haddana isagoo qurux badan inta soo dabaqaada oo qurux badan oo laga yaabay quruxdiisa oo in badanna maxaan ku ilaadaa la tamaniyay in saas oo kale u dhismo intuu ilaahay noo hirgeliyay daayno xaflad wanaagsan ku qabanay tan waxaan rajaynaynaa sanadkan insha Allah ta'ala inuu ilaahay noo fudaydiyo runtii dadku isku aragti maaha waxa laga yaabaa inaanay kulli imika ay leeyihiin talo dhismaha weyn sida loo dhisayaa talo hawshan ma hirgeli doontaa in walaac badan jiro laakiin berito la ka maalin marka la bilaabo wax waliba iska ruboobayaan sidii noqonaysaa degmada ha u dambaysa inay ugu bilicsanaan doontaan u malaynaya haddii Ilaahay yiraahdo way ragga u socda iyo talada imika la wado wixii daacad laga yahay ba wuu dhamaadaa de wax badan la isasiyo oran maayo ummadii de time waynu ku jirnaa insha Allah bismillaahi kariim nin walba halkaaga lagugu iman wixii lagugu soo xukumay gudidu kugu soo xukumto waa gudi qiimo leh waa gudidii qarankii xaafadda ee ganacsatada bay iskugu jiraan de ku ixtiraama hawsha ay u socdaano qof walba waxa la qabanayo u arag wixii danteena ah haddii ay noo dhisanto insha Allah waxay badan oo inoo dhismayna wuu jiraa wadooyinkii way socdaan de ha barbar socotaan leenahay Gacan Libaaxna dhismayaasha socda insha Allah bismillaahi kariim
waxaa saaka la isugu yimi oo maayarkii iyo xoghayntii iyo maamulkii waaxda iyo ganacsatadii iyo culimaadiinkuba isugu yimaadeen in la shaaciyo dib u dhiskii lagu sameynayay degmadan xarunteeda ayaa saaka la isugu yimi runtii gacan libaax waxa weeye waa xaruntii magaalada waa ganacsigii waa xuduntii magaalada ayagii 26 Juunba waa halkii magaaladu runtii ay ka unkantay marka barakallahu fiikum waxa loo baahan yahay walaalayaal xarunteena inaynu dhisano inay ugu horeysaaba ahayd runtii inay maanta ugu dambayso xarumii kale ee ka dambeeyay dhashay marka inay ka horeeyaan may hayna iyadu inay ugu horeysaaba ahayd dhaqaalaha lagu qorsheeyay ama loo qondeeyay waxa weeye lacag 400 kun ayay noqonaysaa marka waxaynu u baahnay walaalayaal ka qayb qaadano waxaynu halka gelinaana waa sadaqa jaariya bay noqonaysaa waa meel inaga wada dhaxaysa waa halkaynu marka magaaladeena iyo waaxdeena iyo dinteena aynu kaga shaqaysanaynay waa halkaynu ku shiraynay aynu horumarka magaaladeena kaga hadlaynay aynu nabadgelyadeena kaga hadlaynay ee wax kasto inagu soo kordhaba aynu kaga hadlaynay maanta waa la isku tashado hawshii waa la bilaabayaa saa la idin sheegayna waxa weeye in degdeg loo dardargeliyo insha Allah taala qolo walba halkeeda loogu tagi doonaa lagu casuumi doonaa waxa ilaahay mahadiya oo maanta yaani horumarka magaalada ka socda waxa weeye aad iyo aad baad dawladda hoose iyo maamulkeeda iyo dhammaan shaqaalaheeda baan ugu hambalyeynayna waxa kaloo aan halkan ka xusaya oo ugu mahadnaqaya dhammaan dawladda hoose guud ahaan sida ay ugu dhiiratay ee qorshe u samaysay ee baleen u samaysay imika waxaan dareemaynaa waxay baaskareeyeen in sanadkan 24 wadadii ugu weyneyd ee halbowlaha magaalada ee 150 ay dhisaan wadadaas waxay maraysaa 4 xaafadood waxay ka soo bilaabmaysaa Macalin Haarun waxay soo maraysaa Gacan Libaax waxay soo maraysaa Juun waxay ku dambeynaysaa Koodbuur waxay sukan keenay waxa weeye halkii aynu ku nooleyn iyo degmadeennii oo foolxumadeedii ka hadhay degmooyinkii kale sawirkeeda markaa hormartaan waa aragteen waxay nagu tahay nusqaan runtii aad iyo aad baan anigu runtii uga xumahay inay ka dambayso degmooyinkii kale oo wada qurux badan kuwii iyada dabadeed dhashay oo wada qurux badan kuwii imika dhashay oo wada qurux badan inay degmadii ay ka aasaantay magaaladu ayadu fool xumaata runtii aad baan uga xumahay hase yeeshee rag baa maanta u guntaday dawladdii hoose waa u diyaar inta maanta aynu rabnaa waxa weeye ganacsatadeenna iyo dadka ku nooliba inay qayb laxad la ka qaataan quruxdeeda inay maxay ahaydeen sidaa loo qurxiyey boorka inaynu dhisno qofku wuxuu bixiyaa waa sadaqad oo wax ka horeeya waa wax u quruxa oo uu ku faani karo maanta markuu hormaro wixii uu geliyey lacagtii laga qaaday oo qurux badan markuu arko qalbigiisa dareemaya wixii uu bixiyey inaanay meel xun ku dhicin waxaanu ballan qaadaynaa sida quruxda badan ee aanu construction documentiga aanu soo diyaarinay si lamid ah hadii Ilaahay yiraahdo inaanu u fulin doono shaqadaasi oo noqon doonto degmooyinka ugu bilicdasan markaad eegto xagga quruxda iyo xagga adayga iyo xagga quality-ga iyo dhan walba arintani waxay ka mid tahay baraarugii ay noola yimaadeen golaha deegaanka ee cusub ee maayirku hogaaminayo fikirka ah degmooyinka hala dhiso waxa la qabsado wadooyinka laga qayb qaato waxay noola yimid golihii deegaanka ee cusbaa ee maamulkan hadda inala jooga uu hogaaminayo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dalna wuxuu ku dhismaa runtii dadka madaxda oo aragti leh unbay markaa wadada raacdaa waxaan leeyahay anigu degmadan aynu hadda joogno ee aynu doonayno in la dhiso waa hooyadii Hargeysa iyadii Juun hooyaduna waxaan leeyahay xagga kale aan ka eegayaayo way markii carruurteeda wax soo siisay iyaduna isugu dambaysiisa marka lama iloobin carruur hore ee imaka dhashay bay ka horeysiinaysay imakana waynu gacanteenu saarayna waynaga saaka u fadhina insha Allah taala waxa quran raacinayaan wax weeyaan ganacsatadii oo halka wax laga helo xaafadaha waxa loola caraabaa ama guryaha iyo degmooyinka kala la tagaa wixii suuqa Hargeysa ka soo baxa centerkuna waa labada degmo weeye marka haddaanay halkani jirteen waxaan qabanay xaafadaha kala joogeen oo ganacsatadu maartay guryaha cusub waaweyn aanay ka dhisteen waxaan leeyahay degmadeena aan quruxsanno